inta ka bacdi 32 sano waqti laga joogaa waxa ay soo galay geel shana geela shantaayo soo galay afar ilma xasan qowlaa sheegtay calaamadooda ilahay halla waxa lahaa qolo reer jalafa calaamadeeda lahayd qoorjar iyo waxay lahayd ma iloobin qoorjar iyo waxay lahayd kabaaliya taraar ilaahay wuxuu garansiiyay anoo nool xayiya inaan dadkii walaalaha ahaa oo xaqaas lahaa inaan cafi ka damco aan ka dalbo ilaahay baa mahad leh ilaahay baa halkaan iskugu keenay ilaahaygaas mahad leh anigoo nool oo xayiya inaan iskugu nimaadno ehelkii waxaas lahaa xoolahaas lahaa iyo anigu inaan halkaan ku kulanno xoolihii ugu dhimay intaas ay ahaayeen waxa wax u dhameystiran yahay ilaahay bay xaqiisa wax ka dhameystiran yihiin qof bilaadan wax uma dhameystirna haddii geelaasu wax ka dhiman yihiin hilibkii geela waxaan rabaa in la igu cafiyo oo dar ilaahay la ii cafiyo ayagana waxaan u keenay ilaahay baraka iyo xasanaad ilaahay ka siiyo dadkii xaqaas lahaa wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto mindhaa xaqooda waa u tagahaya wixii noolla inay igu cafiyaan baan geelaas galabta u keenay odayaasha iyo nabadoonnimada iyo dawladda iskugu yimid halkaan sidaasaan geelaas ku keenay jaamac salaad waxaan leenahay wixii aad keentay oo xoolaha ahaa oo kugu dhumay oo aad garatay inaad bixiso waa kaa qabanaynaa waana kugu cafinaynaa ilma xasan guud ahaanna way isku yimaadeen gaar ahaanna rag badan baa hadda jooga ee maqlahaya waana isoo wakiisheen waana kugu cafinaynaa waxaan leenahay cafi aliya masaabax waxaan leenahay walaalle aad iyo aad ilaahay raadi ha kaa noqdo waayo bini aadanka shaydaan baa ku mataansan waxaan u balbalaariyay waxaan tusay haddii shaydaanka aad ka adkaatay xalay baan wadaad waxaan ka dhageysanayay wuxuu yiri ninka la dad buu xoog badan yahay xooggu ma ahan bay dadka inta la legda dhacya isku dhaca waa ninka naftiisa ka adkaada oo shaydaanka iska dhiciya way ninkaas weey waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waana si fiican badan yeesheen ku dayasho mudan waxaan leeyahay dadka kale islaamka oo xoolaha sidaas oo kale ay ugu baxsadeen waxa weeyaan wixii nool ha iska keenayna annaguna waa ku cafinayna waa soo dhaweynayna sidii bahalka xuubsan mayno wixii ku dhumayna waa ku cafinayna wixii hayana waa ka qabanayna waxaan leeyahay meel kasta ay joogaanba iyo xoolo kasta dad islaameed oo kuwa kastaba ha ahaadeen inay iska celiyaan meel kastaba kuwa qaybtaan iyo dadkan kaliya ma ahane waa qaybaha islaamka oo dhan xoolo la kala hayay oo lagu kala hayay siyaabihii Soomaaliya soo dhex maray oo dhac ahaa ninka istaamac salaado iska soo celiyay xaqa islaamka qofka waxa la amalkii aqligu isku meel bay galaan waa kii ku hormara amalkii baa ku hormaray aqligii baa u soo laabtay baan leeyahay xaqaas uu iska soo celiyay 32 sano ahayd xilligaas aniga waa garanaya nin yar baan ahaa xilli hore ahayd marka waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay jaamac salaad geelaas aad iska soo celiso ilma xasan diin ku soo wareejisay aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waxaan joognaa markaan ku daro meesha aan joogno dareemelay meel la yiraahdo waxay u dhaxaysaa Galdogob iyo Saax Wanaagsan deegaanka la yiraahdo kala badhaa labada beelood oo degan hal Galdogob iyo Saax Wanaagsan ama aan dhaho Sacad iyo Leelkase bay ka soo kala jeedaan labada qolo saaka qolada geela iska celinaysa qolada loo celinayo intaba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa ku mahadsan isku imaadkayaga waxaan u mahad celinayaa jaamac xasan jaamac salaad iyo wiilashiisa iyo intii ka shaqeysaba inuu iska soo celiyo maalkaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Soomaalidu wax badan bay soo mandho burbura waxaan leeyahay jaamac salaad ha lagu daydaan leeyahay qof guri dhacay qof geel dhacay wax badan baa la kala hayaa waa ognahay Soomaaliya waxa la xadaga waa qabaa wax badan baan wadanka ka ognahay waxaan leeyahay ninka odaga ha lagu daydo hal iska celiyo ninkii maal qaba waxaan raad lahayna ma jiraan qof walba waa la og yahay guriga ninkii lahaa iyo ninkii geela lahaa iyo asalkiisa farciisa dad si yaqaan walaalaho dariso wax walba dadku weeye waa la yaqaanaa qaasaan waxaan leeyahay reer mudug wax badan baad kala haysaane iscafiya ninkii xoolo xaq ninka kale leeyahay hayaan ha cafiyo hana u geeyo magacayga Bashiir Xasan Diini baa la yiraahdaa waxaan ahay askari Soomaaliyeed oo federaalka aniga iyo askartan kale oo meesha ila taagtaagan بوليس iyo military ba isku jirnaa federaalka Soomaaliyeed baan nahay ilaa baa mahad u sugnaatay inaan maanta meesha nimaano u dhaxaysa Galdogob iyo Saax Wanaagsan waana shaqadeedii halkaana waxaan u nimid geel baan kala wareejinaynaa insha Allah biidnillaahi kariim geelaas aabahay baa iska lahaa markii hore haddana anaga leh aniga ayaa wax kala joogay anoo jira 12 sano 32 sano ka hor alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ayaa ninka muxsinka oo la yiraahdo Cabdullaahi jaamac salaad
jaamac salaad ayaa gacanteeda dib jaamac salaad dude ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay 30kii bishii saddexaad gacanteeda ku soo wareejiyay waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala marka koowaad ma hadda labaadna waxaa iskale dadkan oo meesha isku mid ah helada iyo adeerkay jaamac salaad iyo wiilashiisa baan u mahad celinayaa annagu waa waajibna saaran mar kasta inaanu nimaano meelahan oo kaleeto ka shaqeyno waa howlahayagii waxaanu matalaynaa dowladdii Soomaaliya matalaynaa